waxaa farxad weyn noo ah inaan dhagax dhigno 5 mashruuc oo ay dawladda hoose fulin doonto sida wasiirka iyo maayarka sheegeen 5 mashruuc isugu jira wadooyin light iyo garoon kubadeed intaba waxaan ku bogaadinaynaa dawladda hoose magaalada Gabiley gaar ahaan maayarka oo muddo kooban xilka hayay bulshada shacab iyo mas'uul dalkoodu inuu bilaabo waliba barto maanta joogo barto waliba maanta joogo baritaka sii wacnaado inana kala bayri mayne dhammaan baritaan bahawno baaqeenu waa wada jir ballanteenuna waa wax qabad baaqeenu waa wada jir ballanteenuna waa wax qabad sida maayarka ayaa sheegeen xildhibaanka iyo cid kasta halka ka hadashay maanta waxaynu bilaabaynaa bilaabistiisu joognaa garoonkii magaalada Gabiley oo madaxweynuhu dhagax dhigay muddo yar oo kooban ka hor aan filaynaa bishii 9aad ahayd maantana shaqadiisii ay socoto sida awgeed sida maayarka iyo ay sheegeen xildhibaanka iyo agaasimaha waxda garoomaduba madaxweynuhu wuxuu dhagax dhigay mashaariic fara badan mashruucan la bilaabayn oo la dhameynayna insha Allah sidoo halka ka sheegay biidnillaahi kariim madaxtooyada Gabiley mashruucan lacag loo hayn ama la dhameystirayna qorshaha dawladda iyo ka xukuumadda wax qabad iyo wada jirmida kuma jirto awalan madaxweynaha oo fulinaya waxyaabihii loo doortay waan mahad celinaynaa sakalni cid kasta kale oo ka qayb qaadanaysa garoonkan oo ka mid yahay maayarka magaalada iyo golihiisa deegaanka iyo shahayada IHS dhamaantood waxaan runtii iyagana aan siinayaa door mahad celineed oo ay mutaysteen waayo bulshadu shaqadeedu cid kasta wax ka qabanaysa way u bannaan tahay waana waxa weeye wax loo wada joogo mahad celinteeda iyo abaalkeeda la wada heli doono inta ka bacdi waxaan ka cadeynaa maanta aan marxaati ka nahay in la bilaabayo shaqadii dhismihii shirkadda Xaaji Muuse oo reer Gabiley iyo bahda dhiskuba runtii ku qanceen waxa weeye qareen shaqadeedii iyo commitmentskeeda oo dhan runtii shirkad lagu kalsoonaan karo shaqan qaban kartana ah halka ay ka bilaabayso saaka shaqada cagafyadii u yaaliin waxaan kaloo mahad celinayaa xildhibaan Axmed Wali iyo meeyarka iyo golihiisa deegaanka iyo xogaha dawladda oo iyaguna runtii mar walba hawshan si ay u socoto hadday shirkadda tahay iyo hadday dawladda dhaxo annaga tahay iyo hadday iyaga tahayba runtii awood iyo xoog fara badan geliyay ilaahay wuu naga asturi doonaa maalinka xigan waxaan isugu imaan doonaa isagoo insha Allah xadhiga laga jari doono garoonka haddaan yaro tafaasiil ka bixiyo runtii wuxuu noqonayaa garoon standard ah sida la idin sheegay oo buuxinaya wax la yiraahdo standardski adduunka hadday tahay lighting systemka iyo hadday tahay roog lagu ciyaarayo iyo hadday tahay wareegyada uu yeelanayo iyo deyrka uu yeelanayo iyo hadday tahay dressing roomka uu yeelanayo iyo hadday tahay VIP-da loo sameeyo taarabuunka laftigiisa suuliyada iyo bahdaas waxaas oo dhan ilaa qaybta caafimaadka oo runtii qolalka ka mid noqon doona oo dhalinyaradu marka ay dhaawacyo soo gaaraan emergency-ga first aid-ka loogu sameyn doono marka waxaan rabnaa reer Gabiley horteena markii hore arrinta la socdaan iyo ummadda reer Soomaaliland waxana ay tahay wax qabadkii dhalinyarada iyo waxyaabihii xukuumadda loo doortay oo aysan ahayn wax kale oo meel kale ka yimid wixii shaqadii dawladdu u igmanayd oo qayb ka mid ay tahay waxaan isla mar labaad iyo mar saddexaad ugu celin doonaa dawladda hoose iyo tiimka la shaqeeya inay diyaariyeen marka garoonkan shaqadu ay ka bilaabanto ama maanta wixii ka dambeeya meeshii lagu ciyaari lahaa ee dhalinyaradeenu xaafadaha ay ka ciyaari lahaayeen iyo garoomo xaafadeedka kale ay sameeyeen aad iyo aad baan uga mahad celinayaa waxaan kaloo halkan rabaa inaan mahad celinta magaalada Gabiley uga raaciyo magaalooyin ay ka mid tahay iyadu waa magaalooyinka ugu fiican ee arrimaha sportska dhalinyarada annagoo bumbuuninayn runtii nagala qayb qaata waxa weeye nala garab jooga dawladaha hoose ugu fiican ee xagga jihaynta dhalinyarada waxa weeye maalgelintooda tacabgelintooda runtii wasaarad ahaan iyo koobkii wareegyada la qabtaba runtii nagala qayb qaata iyo wax kasta oo kale oo arrimaha jihaynta dhalinyarada ah marka wixii dadaala waa loo diyaar wixii xaga la ka qabsoomay waayana waa qadar alle iyo xagiisa laakiin insha Allah sidaan rajaynayno waxa weeye shirkadaasna aan ku kalsoonahay
xukuumadeenna iyo cid kastoo stakeholderka aan ku kalsoonahay in sida ugu dhaqsiyaha badan bidnillahi alkariim ay inoo dhammaan doonto shaqada runtii mashruucan muddo yar kooban ka hor baynu dhagax dhignay madaxweynaha qaranka dhagax dhigay halkan garoonka waxaanu ka mid ahaa 6 mashruuc oo madaxweynuhu dhagax dhigay safarkiisii u dambeeyay runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in madaxweynuhu dhagaxii uu halkaa dhigay maanta dhismihiisii bilaabmaya muddo yar kooban iyadoo ka soo wareegtay ujeeddaduna waxa weeye siday xukuumadda uga go'an tahay mashaariicday mar walba dhagax dhigtay ballamaha ay gashay si u fulayaan garoomada noocan waxay qorshe ka mid ah bay haayeen barnaamijkii xisbiga wadani ee siyaasiga ahaa ee xukuumaddan runtii ay waddanka kula wareegtay mashruucan wuxuu ka mid ahaa runtii in muhiimadda la siiyo dhalinyarada annagoo eegana programka awaamirta madaxweynaha waxaanu dadaal xoogan gelinay sidii ay dhalinyartu u heli lahayd garoomo ku filan waxaan shalay runtii ka sheegay halkaa garoonkaa la joogay Mo Faarax in garoonka Mo Faarax uu ka kooban yahay cabirkii loogu talagalay oo aanu ahayn standardkii FIFA standard isaga laftiisu u baahan yahay in la soo yardurkiyo la waafajiyo FIFA standardkii loogu talagalay garoonka waa laga baaraandegay waa garoon casri ah waxaana filayaa garoonka ugu wanaagsan Soomaaliland inuu noqon doono wuxuu dheer yahay garoomada marka cabirkii standardkii wixii dhan la eegay saraakiishii ciyaaraha halkan fadhiya agaasimaha jooga iyaga qiimeeyay iyaga eegay qorshihii baa lagu dul dhisay wuxuu yeelan doonaa lighting systemkii oo habeen iyo maalinba lagu ciyaaro marka runtii waxaan rajaynayaa insha Allah taala marka garoonkan laga tago garoonkii saddexaad ee loogu talagalay xaafadda weyn ee New Gabilena ee ku dhow agoomaha wuxuu ka mid ahaa garoomadii la dhagax dhigay isaga laftiisu isaguna wax yar buu ka dambeyn doonaa waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku faraxsanahay in wixii lagu kaambeyn gareeyay waxaynu dadka u sheegnay inay mashaariicii fulayaan annaguna qaybteedanu ka qaadanaa dhalinyarada waxaan ugu bushaareynayaa in garoomo ku filan iyo wareegyo qorshaysan oo qoondadeeda maaliyadeed leh insha Allah laga fulin doono Gabiley waxa soo gabagaboobaya horyaalkii waxa ku xigi doona wareegyo kale oo la qaban doono insha Allah taala isu diiba jooga garoomo yar yar oo ugu tala galay xaafad walba 2 garoon oo koobanna iyadana qorsheedu waa lagu jiraa diyaarinta dhulkii waxaan runtii jeclahay inaan u mahad celiyo shirkadda Xaaji Muuse oo runtii ka rajaynayno sidii awalba looga bartay inay dhisto garoon qiimo leh oo runtii waxa lagu heshiiyay inay sideeda buuxso shuruudii waxa inta dheer waxa jira injineeraan ugu tala galay inay ku ilaaliyaan shirkadda Xaaji Muuse wixii lagu heshiiyay 100% fulaan aad iyo aad baan agaasimaha ugu mahad celinayaa oo runtii aan wasaaraddan ciyaaraha una ahayn tacabka uu Gabiley geliyay hawlaha guud markuu joogay oo runtii uu bariijo badan sameeyay aad iyo aad baan si gaar ah ugu mahad celinayaa agaasimaha guud waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa inaan maanta markhaati ka ahay oo ay tahay shaqadii ugu horeysay inaan ka qayb galo bilowga mashruucan dhismaha garoonka kubadda cagta Gabiley oo laga dhigay garoon casri ah waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo hore u dhagax dhigay garoonkan oo ka dhigay garoon casri ah waxa kale oo mahad leh wasaaradda ciyaaraha oo awood badan iyo tacab gelisay fulinta mashruucan waxaan ku boorinayaa dhalinyarta reer Gabiley ee garoonka isticmaalaya inay ilaashan doonaan insha Allah dhismaha quruxda badan ee loo dhisi doono iyo waxyaabo ka kooban yahay oo dhan aniga farxad gooniye tahay waa mashruucii ugu horeeyay ee inta xilka la wareegay ka fulaya Gabiley ee dhagax dhigiisa ka fulintiisa markhaati ka ahay hore waxa uu dhagax dhigay madaxweynaha qaranka waxaan kaloo mahadnaqayaa hay'adda IHS oo iyaduna qayb ka ah fulinta mashruucan dhismaha waxa kaloo mahadnaqayaa shirkadda Xaaji Muuse oo ah shirkad dhisme oo ah shirkad dhista dhismayaal qiimo leh oo tayo leh